Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. walaalaha qaaliga ah ee ku xidhan channelkayga Fatima Lifestyle Channel, kulligiinba aad iyo aad baan idiin salaamay meel kasta dunida dacaladeeda ka joogtaan. insha allah biidmillaahi arraxmaan. waa salaad hore, rootiinkaygii arrimahaygii baan kala wataa insha allah biidmillaahi arraxmaan. halkan waxaa ii yaala kutub aan dhameeyey maasha allah tabaarakallah, oo aan akhriyey akhriskiisii iyo tusbaxaygii maasha allah tabaarakallah. xayiikum waxaan rabaa insha allah inaan idinla sheer garayo. horta sooray kun jeer ha layga raali ahaado, waxba baryahan maa soo gelinin, mana soo gelin doona insha allah biidmillaahi arraxmaan. sababo aawadeed, sababtaasina waxay tahay horta waxyaabo fara badan oo aan faa'iido aan idiin hayo insha allah waan idinla sheer garayn doonaa insha allah biidmillaahi arraxmaan. waana mawduucyo kuwaasi ayay ku saabsan yihiin, mawduucyo fishtig ah oo aad iyo aad u muhiim ah insha allah. hooyo kasta iyo aabba kasta oo wadanka ku nool insha allah, qurbaha weliba iyo kuwii wadankii ku noolba insha allah biidmillaahi arraxmaan. inta haddaynu halkaa kaga nimaadno, waxaan kusoo rogay youtube channelkayga insha allah biidmillaahi arraxmaan inaan shuruudo u sameeyo. shuruudahaas oo aan ku dhaqmi doono insha allah biidmillaahi arraxmaan. shuruudo aan xeerka aan jebin doono ma aha insha allah biidmillaahi arraxmaan. xeerkaasuna insha allah biidmillaahi arraxmaan waxa waaye in aan u sameeyey shuruudaha ah in aanan markasta horta waqti wax la yidhaahdo siin doonin, aanan waqtina u haynin in aan wax cunto soo duubo, inaan arrimaha ka hadlo insha allah biidmillaahi arraxmaan. laakiin haddii ay suurtoobi weydo oo aan isiraahdo waxaas waa wax aad iyo aad u muhiima, waa wax dadka ku cusub, waa wax aad iyo aad u qaaliya, meel kastaba cuntaa taala, meel kastaba wax yaroo la sharaxaya baa yaala. marka cunto moor way ka tan badatay soomaali maxamed. marka bedel in aad samayso wuxuu qofkii wax ka faa'iidi karaayo in aad samayso ayaa wanaagsan. marka insha allah biidmillaahi arraxmaan cuntadana kama tanaasuli doono insha allah, ee wixii cusub ee marka gurigayga ku cusub ee aniga i qanciyo waan idiin soo duubi doonaa. marka idinkuna waad kasoo falcelin doontaan haddii rabbigu raalli ka ahaado. sidaas ayaa inoo balana insha allah. mar rabo waqtigaa aad iyo aad iigu yar insha allah. maanta waa axad, waa maalin aad iyo aad u qiimo badan. kutubkan baan sii qaybayaa, qur-aankii baan kasoo baxaya insha allah biidmillaahi arraxmaan. maalinta axadda iyo sabtidana meesha aan tago iyo meeshaan qur-aanka kasoo dhigta insha allah waan idinla sheer garayn doonaa haddii aad rabtaan oo aad tahay hooyo qurbaha ku nool insha allah biidmillaahi arraxmaan. waxaan idinkaga tegayaa sidaas iyo nabadgelya baan idin leeyahay. maalintu ha idiin wacnaato kulligiinba, waxaan idin leeyahay idinkamaan caajisin, laakiin waqtigaanin saacidanina waayaha ayaa horeba loogu maahmaahay. marka waxaan idin leeyahay meel kasta dunida dacladeed ka joogtaan, asxaabta igu xidhan ee i taageerta ee i daawata iyo inta aan i daawaninba waxaan leeyahay thank you so much. salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.